war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa mar kale looga hadlay warbixintii ka soo baxday guddiga xaqiiq raadinta ee urur goboleedka IGAD. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa ugu baaqday urur goboleedka IGAD inay wax ka beddesho warbixintii ay soo gudbiyeen guddiga xaqiiq raadinta ee ururku u diray xuduudda ay la wadaagto Kenya, iyadoo ay sheegtay in warbixintaas ay si weyn ay saameyn ugu yeelatay Kenya. warbixinta dawladda ayaa sidoo kale lagu sheegay in guddiga ka socday Djibouti ay u xideen Kenya sida ay sheegeen dawladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegtay in tan iyo markii guddiga uu hooshiisa bilaabay 9 Janaayo uu dhowr mar oo isxigtay uu booqday Kenya, isla markaana uusan ku soo laaban magaalada caasimadda ee Muqdisho. guddigu wuxuu sidoo kale warbixintiisa ku qirtay in lagu qaaday diyaaradaha helicopterka ee ciidamada Kenya xilli guddiga ku guda jiray shaqo dhinaca ku aadan xaqiiq raadinta, taasi oo ku aadneed inay soo eegaan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Kenya. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in warbixinta guddiga ay si weyn u dhaawacayso dhexdhexaadnimada ee maqaamka Djibouti ahaa saaxiib la aaminay oo dhexdhexaadnimadii ka baxday. sidaas darteed la yaab ma lahan in natiijada howlgalka xaqiiq raadinta guddiga ay noqoto mid dhan u janjeerta, ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya. ugu dambeyn, war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay inaysan ku kalsooneen ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee ku sugan Soomaaliya, isla markaana aysan xilligan dawladda federaalka Soomaaliya kalsooni buuxa aysan ku qabin inay qayb ka qaadato xasiloonida iyo nabadda Soomaaliya, balse Kenya ay ugu faa'iideysanayso danaheeda arrimaha Soomaaliya. aad baad mahadsan tahay Cali Ibraahim Cabdullaahi Cali Suxayfa. siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka waqooyi bari Kenya ayaa been abuur ku tilmaamay warbixintii ka soo baxday guddiga xaqiiq raadinta ee IGAD. maslax Abubakar Xaaji ayaa warkan ka soo diray magaalada Nairobi. senatarkii hore ee ismaamulka Mandera Bilow Kerow oo qoraal kooban soo dhigay bogga uu ku leeyahay Twitterka ayaa waxa uu si kulul uga hadlay warbixintii ka soo baxday guddiga IGAD ay u xilsaartay xaqiiq raadinta xiisada ka taagan Soomaaliya iyo Kenya dhexdeeda, gaar ahaan aagga xuduudda ee ismaamulka Mandera iyo gobolka Gado oo dhawaan indhayn ay ku tageen, isla markaana warbixin dhameystiran ay u gudbiyeen hoggaanka sare ee urur goboleedka IGAD. siyaasi Bilow Kerow ayaa aad iyo aad waxa uu ka soo horjeestay hadalka ka soo baxay guddigaasi oo ay ku sheegeen waxyaabo badan in ay ku soo arkeen xuduudda, gaar ahaan dhinaca Kenya. Bilow Kerow ayaa yiri haddiiba kooxdii Djibouti ee la soo diray in ay booqdaan Manderana lagu qasbay, ay soo sheegeen inaysan ku soo arag maleeshiyaadka janan magaalada, si cad ayay isaga indhasaabeen arrinka dhabta ah ee ka jira gudaha Mandera. Bilow Kerow ayaa ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda ismaamulka Mandera ee sida weyn u diidan in Cabdirashiid Janan iyo ciidankiisa ay ku sii sugnaadaan deegaano ka tirsan ismaamulka Mandera, isagoo sheegay dadka reer Mandera inaysan nabad heli doonin inta ay ciidankaasi halkaasi ku sugan yihiin. waxaa la fahansan yahay dawladda dhexe ee Kenya in si toos ay uga warqabto in ciidamada ka tirsan Jubbaland iyo wasiirka amniga Jubbaland halkaasi ay ku sugan yihiin, inkastoo siyaasiyiin xilal haya iyo kuwa kale oo horay xilal u soo qabtay oo Bilow Kerow uu ka mid yahay aysan ku qanacsaneen hanaanka dawladda ay u wajahayso xiriirka kala dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya. maslax Abubakar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. ciidamada ammaanka ayaa saaka xiray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho. sidoo kale banaanbax ayaa maanta lagu wadaa inuu ka dhaco qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Cali Cilmi Salaad ayaa inoo haya. wadooyinka qaar ee magaalada caasimadda ah ayaa saaka oo Jimcaha xiran, waxaana lagu arkayaa ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya. ciidamada booliiska Soomaaliya oo wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu arkayaa wadooyinka, waxaana dadka iyo gaadiidka goobaha qaar loo diidan yahay isticmaalka. dadka shacabka ah ayaa lagu arkayaa jidadka iyaga oo lugeynaya, kuwaas oo saaki kuwa biriistay xirnaanshaha qaar ka mid ah wadooyinka magaalada. wadooyinka ay ciidamada xireen ayaa waxaa ka mid ah
tan isku xirta isgoosyada maanaboolyo ilaa iyo daljirka siina aada degmada xamarweyne iyo kuwo kale oo aad ugu muhiimsan isu socodka gaadiidka iyo dadka. xirnaanshaha wadooyinka qaar ee magaalada ayaa lagu sheegay inay ka dambayso kadib banaanbaxyo la filayo in maanta ay ka dhacaan qeybo ka mid ah magaalada muqdisho. dibadbaxan uu soo abaabulay maamulka gobolka banaadir ayaa lagu sheegay in lagu taageerayo go-aankii madaxweynaha uu ku saxiixay 13 kursi ee aqalka sare uu ku lahaan doono gobolka banaadir. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gelinkii dambe ee shalay saxiixay qoraalkii golaha shacabka ee dowladda Soomaaliya ay u soo gudbiyeen ee ku aadanaa matalaadda gobolka banaadir uu ku yeelanayo aqalka sare. hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa sheegay in go'aanka uu madaxweyne Farmaajo ku ansixiyay in gobolka banaadir uu ku yeesho baarlamaanka 13 kursi uu yahay mid qabya. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa dhameystiraya faahfaahinta warkaasi. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir kana mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka hor yimid go'aanka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku ansixiyay 13 kursi oo aqalka sare ku lahaan doono gobolka banaadir. isagoo la hadlayay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in go'aanka madaxweyne Farmaajo uu ku saxiixay kuraasta aqalka sare ay tahay qarxin siyaasadeed. dadka muqdisho cashuurta ugu badan laga qaadaa culayska ugu badan dowladda ku dhaca waxay u baahan yihiin matalaad inay golayaasha u deegaan iyo dadka matalaya soo doortaan say uga xisaabtamaan u baahan yihiin jidka ku xiran loogu furo oo islaamaha jidka ku dhalay markiiba ku dhalin oo ay kala xisaabtamaan dadka mas'uuliyiinta ama meeyar aduunya ama madaxweynaha goboleedka ay rabaan. laakiin kuraas loo soo magacaabay banaadir xal uma aha. banaadir maqaama ka maqan kama maqna dhowr kursi oo baarlamaan loogu daray kama maqna oo la aqoonin cid maqaamka wadada leeyahay lagu keeno waa caddahay. waxaa laga rabaa gudoomiyaha gobolka hadda magacaabay oo processkeeda bilaabo. haddii muqdisho la rabo xilligii manaasibka loo qaban lahaa laakiin ciyaartii oo ka dhiman tahay daqiiqadii ugu dambeeyay soo tuura bomba F1 ah waa qarxin siyaasadeed waaye. madaxweynahana mas'uuliyad darro u muujiyay 329 kursi heshiiska lagu hay meelaha ku sheego oo qowlaha doorashadeed. go'aanka madaxweyne Farmaajo uu ku ansixiyay kuraasta aqalka sare uu ku yeelanayo gobolka banaadir ayaa waxaa soo dhaweeyay qaar ka mid ah siyaasiyiinta halka kuwa kalena ay ka soo horjeesadeen. aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan axmed gacal. taliyaha booliska gobolka waqooyi bari Kenya ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan Kenya kaasi oo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. taliyaha ayaa waxa uu sheegay in qaraxa lagu dilay sarkaal boolis ah halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaarigooda uu qarax ku dul maray meel u dhow xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in dhaawacyadooda loo qaaday isbitaalada ku yaala dalka Kenya isla markaana haatan xaaladooda halkaas lagu baxnaaninayo. taliyaha ciidanka booliska waxa uu shacabka ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si looga hortago weerarada al-shabaab. al-shabaab ayaa alaaba waxay adeegsataa minooyinka waxayna si gaar ah u beegsataa saraakiisha amniga ee ka howlgala xuduudka Soomaaliya iyo Kenya. howlgalladaas roondada ah waxaa lagu sugaa amniga.